anigu waxaan u arkaa in wax leeyahay dawladnimo aanay jirinba waxaan halkan uga sheegayaa madaxweynaha qaranka maalin dhawood oo dhan waxaan ka arkaya facebooka Salebaan Maxamuud Aadan baa loo tukayo xildhibaankii wadaniga kuwii kulmiya loo yeedhayo habar jeclo ka arrimaya baa leeyahay habar jeclo boqor buur madow iyo suldaanka guud Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali ayaa ka arramiya oo go'aankiisu ku go'an labadiina dalka way ka maqan yihiin habar jeclo hadday labadaas ka maqan yihiin wax go'aan oo ay gaari kartaa ma jirto marka arrinta xisbiga kulmiye ee la sheegaya waxba kama jiraan waxa laale wax ka jira ma jiraan waxaan u arkaa in dadkii habar jeclo musabixi doonayeen musabixi isku dilaayo habar jeclo iska horkeenayo oo doonayeen laba guluub ka kala dhigo iska horkeeno xaashiyo maxamed kahina oo laba guluub oo habar jeclo weyn iska horkeeno habar jeclina uu burburiyo musabixi gacantiisa ku burburiyo ayuu doonayaa macquul ma aha habar jeclo inay xildhibaan wadani iyo kulmiye iyo ucudi ay u taliyaan oo habar jeclnimo ugu taliyaan iyo afar oday oo kale oo loo yeedhay habar jeclo masiirkeedu wuxuu ka go'aa suldaanka guud Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali iyo boqor buur madowna adigaa yidhi dalka mamnuuc baad ka tahay habar jeclo codku siinaysaa wallaahi inan xumaatay baan kuu codaynayn iyo inanka suuqa dibjirkee jooga iyadoo boqor buur madow ku soo noqdo dalka mooyaane adigu waxqabaadka ka mid tahay waxaan go'aankii reer kale waxa la leeyahay cid kale iyo wasiirada ka talinaya oo cali maraxaan iyo kamid yihiin arrintaas idinka madax dhaqameed ahaan hadda ka tahay beesha ka mid tahay ceeb ma idinku hayn waxay ceeb ku tahay qaranka Soomaaliland waxay ceeb ku tahay madax dhaqameedka habar jeclo oo dhan aniga keligaygu ma aha waxaad moodaa madax dhaqameedkii habar jeclo oo dhani in irbad suna lagu dhuftay kulligood ma hadlayaan way aamusan yihiin way wada aamusan yihiinoo waxbaa saaran in waliba Facebook meel kula jira waxaa leeyahay madax dhaqameedka habar jeclo war tala guud ha la isugu yimaado masiirka habar jeclo ha laga tashado tan musabixi uu keenayo uu leeyahay bal cid u dhiiba xusbigana dee xusbigu maaha samada lagaga iman maayo xusbigu wuxuu leeyahay shuruuc xusbiga kulmiye dastuurka Soomaalilana waxbuu qayirayaa cid baa xaq uu siinayaa ciduu xaqa siinaya hadduu isagu ka qaadaya ciduu doonaya u dhiiba dee musabixi ha ka qaado ciduu doonaya ha u dhiibo cid baa xusbigu cid buu siinayaa madaxweynuhu kulmiya uu siinayaa xaqa oo xusbiga uu ku wareejinaya haddii musabixi isagu cudi wato waxba habar jeclayaanu iska horkeenin musabixiye isagu ciduu doonaya ha u dhiibo musabix oo yidhi anigu xusbigii hebelo habar jeclaa baan u gartay laakiin ayaanu annaga harag noo soo marin maxaa la odhan jiray markuu naabku hasha ka baxo maqaar dad habar jeclo lagu sheedo maqaara yaan annaga naloo soo marmarinin loodhan waa habar jeclo yagaa ka arriminayo xusbigii kulmiye qarankana waxaan leeyahay madaxweyne dadkii ku doortay qaar baan dab loo shidin dad badan baa baktiyaya dad badan baan iidin bal intaan madaxtooyadan maxbuuska aad ku tahay ka soo baxdo magaalada dadka masaakiinta maro dadka iidsii baan ku leeyahay madaxweyne dadka iidsii baan ku leeyahay oo dadka masaakiinta ah aan waxba haysan dadka iidsii dalka waa in la ilaaliyaa waayahay uga su'aal baan kaa weydiinayaa haye xisbiga kulmiye yaad u garan lahayd siyaasiyiinta habar jeclo ku loolamayeen loo doorto horta anigu nin baan u garan lahaa ninkaan u garan lahaa waa ninaan anigu la socon waa ninkaya adeerka ahoo anigu lamana socdo mana dhisaayo aniga iyo khayrkay toonna naf uma hayo maxamuud xaashi baa u leh maxamuud xaashi waa nin siyaasiya waa nin habar jeclaa anigu waxaan leeyahay maxaad labada nin kala godobsanaysaa adigu waa anigu maba kala godobsanayo waxaan ku yidhi anigu lama shaqayn maayo hadduu ku soo baxo adeerkay nin la shaqaynaye meehi waxaa laga yaabaa inaan maxamuud xaashiba la shaqeeyo laakiin inaan adeerka la shaqayn baa dhici karta waayo anigu dawladda iminka joogta waan ka soo horjeedaa xusbiga kulmiye waan ka soo horjeedaa xusbiga wadani baanahay